wiilkan caajislowga ah wuxuu aad u necbaa inuu iskuulka aado ama wax barto. Si uu hurdo u helo wuxuu ku riyooday inuu iska noqdo dibi isagoo u malaynaya inay nolol raaxo leh tahay. laakiin aabihiis markuu arkay dibiga hurda naxariis uma gelin ee shaqo adag ayuu beerta ku geliyey. wiilkii oo hadda qaab dibi ah leh wuxuu wajahay xaqiiqo qaraar. waa inuu qoraxda kulul hoosteeda ku qodaa dhulka isagoo aan hadli karin dartiisna aan ka caban karin. markii uu arkay wiil kale oo iskuul u socda oo faraxsan qoomamo iyo murugo ayaa qalbigiisa gashay balse xilligan waxba ma bedeli karo dhibaatadu intaas kuma eka. maalin walba culaysyo waaweyn iyo alwaaxyo culus ayaa dhabarka loo saarayaa. gaajo haraad iyo daal dartiis ayuu ugu dambayntii ku dhex dhacay webiga iyadoo aabihiis uusan wax naxariis ah u muujinayn xaaladiisa. markii guriga la keenay fiidkii wuxuu isku dayay inuu qolkiisii hore galo si uu u nasto laakiin aabihiis ayaa u shala dhacay kuna celiyey xerada xoolaha. xataa hooyadiis oo uu jeclaa waxay u keentay cunto xoolaad oo qashin ah taasoo keentay inuu ilmeeyo isagoo dareemaya dulinimo dhab ah. shaqadii adkayd waxay sababtay inuu xanuunsado oo uu dhulka ku dhaco. halkii laga daweyn lahaa aabihiis wuxuu go'aansaday in dibigan uusan faa'iido lahayn. subaxdii dambe waxaa loo kaxeeyey suuqa waxaana laga iibiyey ninka hilibka qala si loo gowraco. wiilkii oo naxsan ayaa arkay aabihiis oo lacagtii qaatay iskagana dhaqaaqay. markuu fahmay in la qali rabo oo naftiisa ay khatar ku jirto wuxuu sameeyey go'aan degdeg ah. wuu ka badbaaday xariggii wuxuuna bilaabay inuu si waali ah u cararo si uu naftiisa u badbaadiyo. rag badan oo usha wata ayaa soo ceyrsaday. wuxuu jiiray webiyo iyo dhul adag ilaa uu gaaray buur dheer. daalkii ayaa ka batay wuxuuna ku dhuuntay geed gadaashiis isagoo dib u xasuusanaya fursadihii qaaliga ahaa ee uu iska lumiyey markii uu bini'aadamka ahaa. nimankii way soo gaareen meel uu u baxsado ayuuna waayey. markii uu dib u gurtay wuxuu ka dhacay jar dheer oo halis ah. cabsidii ugu darnayd ayuu dareemay isagoo u haysta in noloshiisii ay halkaas ku dhammaatay. si lama filaan ah ayuu qaylo ku toosay. wuxuu arkay inuu weli yahay wiilkii yaraa waxaas oo dhanna ay ahaayeen riyo cabsi leh. farxad darteed ayuu hawada la booday markuu ogaaday inuu weli haysto fursad uu noloshiisa ku hagaajiyo. maalintaas wixii ka dambeeyey wuxuu noqday wiil firfircoon. hooyadiis ayuu caawiyey iskuulkana waa u cararay. wuxuu bartay cashar weyn in wakhtiga iyo fursadda waxbarasho la qiimeeyo caajiskuna uu yahay cudur qofka u horseeda qoomamo aan dhammaad lahayn.